Amiin oo ahaa istaafka Ibrahim Traore ayaa badbaadiyay noloshiisa kadib markii uu si degdeg ah u joojiyay in madaxweynuhu uu koro gaarigii loogu talagalay inuu raaco, laakiin khatartu intaa waa ay ka weyneyd oo gaariga banaankiisa waxa ka dhacay ma aysan ahayn wax la fili karo amaba la rumaysan karo. Si loo qaarijiyo madaxweynaha waxaa ka shaqaynayay shabakado isku xiran iyada oo la adeegsanayo nidaamka loogu talagalay ilaalinta badqabka madaxweynaha. Ibrahim Traore waxa uu fashilin doonaa shirqool aad u qoto dheer oo ka yaabiyay caalamka, balse intaana u guda gelin sheekadeena saaxiibayaal ku saliya nabiga oo soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahayna janalka ku soo biir si aad noola jaan qaado. Ibrahim Traore waxa uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka Burkina Faso ee ku yaalo magaalada Ouagadougou ee ah caasimadda dalka Burkina Faso. Calanka Burkina Faso ayaa ka lulmanayay isaga oo madaxweynuhu uu xilligaasi ka soo baxay shir uu ku lahaa gudaha madaxtooyada. Kolonyada ayaa ku sugayay barxadda hore, gawaaridu waxa ay ahaayeen kuwo diyaarsan, leerarka ayaana qabanayay gidaarada hore iyada oo goobtu ay ahayd gudcur madow. Waxa uu u lugeeyay dhankii ay gawaaridu taalay iyada oo hareeraha ay ka socdaan soo majeystayaal u tababaran ilaalinta badqabka madaxweynaha. Mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah ayaa si kadis ah u hor cararay madaxweynaha isaga oo gacanta kor u qaaday, sidoo kalena waxaa ka muuqatay cabsi badan isaga oo ku qaylinaya ha gelin gaariga madaxweyne. Istaafka wajigiisa durbadiiba waa uu isbedelay, gacantiisuna waa ay gariiraysay isaga oo xiray albaabka gaariga. Ibrahim Traore waa uu istaagay isaga oo yaaban, indhihiisu waxa ay ku dhaygageen wejiga ilaalada. Wax weyn ayaa khaldanaa, askartii kale ayaa is eegayay iyaga oo wareersan, nin walbaahina qorigiisa ayuu ammaanka ka jaray. Waa Keblayurar. Leer qabow ayaa socotay, xaalkuna waxa uu ahaa mid cakiran. Talow maxaa dhici doona? Ibrahim Traore dib ayuu u gurtay isaga oo maskaxdiisu ay ka fikirayso waxyaabaha dhici kara, waxaana hareeraha ka socday kolonyada iyaga oo heegan ku jira. Codkiisu waxa uu ahaa mid degan, laakiin waxaa ka muuqday shaki badan isaga oo ka walaacsan sida ay xaaladdu noqon karto. Mid ka mid ah istaafka ayaa u soo dhawaaday madaxweynaha isaga oo hoos ugu faqay erayo aan cidina maqlin, balse Ibrahim Traore wejigiisa bedelay. Warbixin ayaa daqiiqado ka hor ka timiday nidaamka jooga ama ilaaliya meesha la dhigo baabuurta madaxda. Qof ayaana u dhawaaday gaariga maanta gelinkii hore. Qof aan la ogeyn inuu halkaasi joogay ayaa la sheegay inuu maanta ku sugnaa goobta baabuurta madaxda la dhigto. Istaafkii ayaana bilaabay inay hubiyaan gaadiidka iyaga oo gaarigii laga shakisanaa ee madaxweynuhu uu raaci lahaa ay si taxaddar leh u fureen albaabka iyaga oo isticmaalaya toosh. Waxayna ku baareen gudaha. Markii hore waxba ma aysan arkin, balse daqiiqado kadib waxaa la baaray kursiga hoostiisa iyo qaybta hawo-mareenka. Mid ka mid ah istaafkii baarayay gaariga ayay farihiisu hal mar istaageen kadib markii ay taabteen xarig yar oo dhuuban, kaasi oo ka imaanayay qaybta hoose kuna socday qayb qarsoon oo ku taala dashboardka gaariga hoostiisa. Ibrahim Traore waxa uu taagnaa bannaanka isaga oo eegaya ilaaladiisa oo yaaban. Xarigga markii la sii raacay waxa uu geeyay qalab yar oo ku dhex qarsoonaa dashboardka gaariga, waxa uuna ku sii xiriirsanaa tubada shidaalka iyada oo loo isticmaalay nidaamka korontada ee gaariga. Hal mar oo furaha lagu rogi lahaa gaariga ama hal dhimbiil oo gaari lahayd qaybta dabka ee gaariga, gaarigu waxa uu isku bedeli lahaa qarax aan la qiyaasi karin khasaarihiisa. Istaafkii ayaa si taxaddar leh sawir uga qaaday iyaga oon taaban, kadibna waxa ay u direen kooxda miino baarista. Ibrahim Traore waxa uu taagnaa isaga oo aamusan, isaga oo la yaaban sida loola damcay shirqoolka iyo sida uu uga badbaaday. Laakiin yaa halkaasi dhigi kara qalabkana gaariga ku rakibi kara? Waa su'aalaha ugu badan ee uu isweydiinayay. Meesha baabuurta la dhigto waxa ay ku dhex taallaa dhismaha madaxtooyada, waxaana ilaaliya lakabyo 3 ah oo ammaan ah. Kaliya waxaa geli kara shaqaalaha loo igmaday ee loo ogol yahay, waxaana ka shaqayn kara askarta la aaminsan yahay ee ilaaliya nidaamka amniga ah ee halkaasi. Tani ma aysan ahayn weerar ka yimiday dibadda ee waxay ahayd weerar lagu qorsheeyay gudaha. Ibrahim maskaxdiisu waxaa ku soo dhacayay su'aalo tirbeel ah, balse la taliyaashiisa ayaa dejinayay iyagoo u sheegayay in arrintani ay noqon doonto mid iska fudud lana xalin doono.
madaxweynuhu waxa uu amar ku bixiyay in isla markiiba la xiro dhammaan albaabada laga soo galo dhismaha madaxtooyada, isaga oo sheegay inuusan qofina u bixi karin bannaanka, qofina uusan ku hadli karin taleefan, askari kasta iyo shaqaale kasta iyo farsamayaqaan kastana uu ku sugnaado goobta uu hadda taagan yahay. Waxa uu dib ugu laabtay xafiiska madaxtooyada. Calanka Burkina Faso ayaa weli ka babanaya, ma uusan fariisan madaxweynuhu ee waxa uu bilaabay inuu socdo isaga oo ka fikiraya weji kasta, jadwal kasta iyo meel kasta oo laga soo geli karo. Kooxda miina baarista ayaa ku guuleystay 2 saacadood kadib inay soo saaraan qalabkii miinada ahaa ee lagu rakibay gaariga madaxweynaha. Waxa uu ahaa mid casri ah, lagu soo sameeyay dibadda, looguna talagalay in cid walbaahi uu noloshooda galaafto isla markaana uusan reebin wax caddayn ah. Ibraahim waxa uu u fiirsaday isla markaana uu eegay sawirro saarnaa miis hortiisa ah. Tani ma aysan ahayn shaqo ay qabteen dad iska caadi ah, balse waxa ay ahayd shaqo laga shaqeeyay isla markaana ay qabteen dad haysta agab iyo tababar aqoon sare leh. Waxa uu yeeray madaxa ammaanka ee madaxtooyada oo ahaa sargaal rugcadaa ah oo u soo adeegay qaranka in ka badan 15 sano. Ibraahim waqti kuma uusan lumin salaan ee waxa uu weydiiyay hal su'aal: yaa geli karay meesha baabuurta madaxda la dhigta ee ku taala madaxtooyada? Sargaalkii ayaa soo saaray buug diiwaanka, waxa uuna sheegay 12 magac oo ay ka muuqday liiska markaasi la diiwaan geliyay: makaanigo, ilaalo shaqaale, nadaafad iyo hal magac oo shaki badan abuuray. Darawalka wasiir ku-xigeenka ayaa seexday 4tii subaxnimo isaga oo soo gudbiyay codsi ah inuu eegayo gaari lagu dayactirayo gudaha oo uu lahaa wasiirku. Ibraahim ayaa farta ku fiiqay magaca. Maxay tahay sababta darawalka wasiir ku-xigeenku uu ugu baahday inuu xilligaasi soo galo madaxtooyada? Madaxii amniga ayaa ugu jawaabay: ma aqaano madaxweyne, balse laakiin waxa uu ii sheegay inuu hubinayo gaari lagu dayactirayo gudaha. Ibraahim waxa uu amar ku bixiyay in darawalkaasi la keeno, laakiin markii ay askartu tageen gurigiisa oo uu ka deganaa magaalada Ouagadougou, gurigu waxa uu ahaa mid maran oo aysan joogin cid bani'aadam ah. Dadka deriska ah oo la weydiiyay ayaa sheegay in uu baxay xalay saqdii dhexe isaga oo wata 2 boorso. Telefoonkiisu waxa uu ahaa mid dansan, waxaana la ogaan waayay halka uu jaan iyo ciribba dhigay. Ibraahim waxa uu dareemay in tani ay tahay shabakad weyn oo isku xiran, waxa uuna xaqiiqsaday in haddii qof gudaha ka tirsanay uu qalabkaasi ku rakibay gaariga, sidoo kalena uu jiro qof kale oo ka tirsan nidaamka kaasi oo ilaalinayay. Waxa uuna u baahday inuu si taxaddar leh u hubsado sida ay wax u jiri karaan. Waxa uu xafiiska ka baxay isaga oo ilaalo yar wato, waxa uuna aaday saldhig ciidan oo ku yaalay cirifka magaalada. Halkaasi waxa uu madaxweynuhu kula kulmay 3 sargaal oo uu horey u yaqiinay tan iyo maalmihii uu ahaa ciidanka. Kuwani ma aysan ahayn siyaasiyiin ee waxa ay ahaayeen askar la soo dagaalantay xilligii ay ku jireen furimaha hore, kuwaasi oo la soo dhiigbaxay sidoo kalena uu ku ogaa karti badan. Waxa uu madaxweynuhu u sharaxay waxa dhacay. Waxa uu madaxweynuhu ku amray inay sameeyaan baaritaan iyada oo aan la marin dariiqa rasmiga ah si aysan u ogaanin kooxda ku sugan gudaha madaxtooyada, kuwaasi oo qaar ka mid ah laga shakisan yahay. Saacado gudahood waxa ay heleen taariikhda taleefanka iyo darawalka, sidoo kalena waxa ay heleen xiriiradii dhex maray wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale darawalka iyo xubno kale oo aan la aqoonsan. Sidoo kale waxa ay heleen wicitaano uu la yeeshay dibadda. Arrintan ayaana dhalisay raad lagu sii wadi karo baaritaanka si looga gungaaro. Lambarku waxa uu ka diiwaan gashanaa taleefan aan la aqoonin, laakiin waxa uu u muuqday mid aan ka dheereen xarumaha dowladda. Qof kasta oo darawalku la hadlayay waxa uu ahaa qof ka tirsan xukuumadda. Ibraahim waxa uu calaamadiyay khariirad, waxaana khariirada ka muuqday wadada uu maray oo isku xiraysay madaxtooyada, wasaaradda gaashaandhigga iyo guri gaar ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Ouagadougou. Gurigaasi oo uu lahaa sargaal ka tirsan ciidanka madaxtooyada. Ibraahim waxa uu ogaaday in qorshahani laga shaqeeyay, laakiin uu ahaa qorshe lagu bixiyay lacag fara badan. Waxa uuna bilaabay inuu soo saaro diiwaanada maaliyadda isaga oo adeegsanayo dad uu ku kalsoonaa. Diiwaanada ayaa shaaca ka qaaday wax la yaab leh: 3 sano ee la soo dhaafay, malaayiin dollar ayaa laga wareejiyay sanduuqa kaabayaasha maaliyadda ee qaranka, loona wareejiyay xisaabo gaar ah oo ay leeyihiin shirkado been abuur ah kuwaasi oo ka shaqeeya shidaalka.
lacagtaasi waxaa loogu talagalay in lagu dhiso wadooyin, dugsiyo iyo cusbitaallo tuulooyinka miyiga ka fog loogu talagalay in laga dhiso. Ibraahim Traore waxa uu ogaaday in mashaariicdaasi loogu talagalay inaysan weligood dhammaystirmin si loo curyaamiyo waxqabadka dowladda. Qaar badan oo ka mid ah mashaariicdaasi waxay ahaayeen kuwo aan gebi ahaanba la bilaabin. Waxa uu xaqiiqsaday sababta miinada loogu dhigay. Qof ayaa ogaaday inuu Ibraahim Traore weydiiyey su'aalo ku saabsan mashaariicdani intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada. Su'aashaasi waxay abuurtay shaki badan. Miinada waxaa loogu talagalay in looga takhaluso laguna aamusiyo inta uusan ogaanin si qoto dheer. Ibraahim waxa uu booqday shirkaddii qareennada ee diiwaan gelisay shirkaddaas loo isticmaalayay lacagaha qaranka in lagu marin habaabiyo, balse la sheegay inay ka shaqaynayso shidaal. Waxa uuna u sheegay qareenkii inuu kala dooranayo inuu hadda la shaqeeyo dowladda amaba uu wajaho caddeymo in uu gacan ku siiyey shirqoolka madaxweynaha. Qareenkii ayaana soo saaray feelal la yaab leh oo muujinaya in wax walbaahi ay dib ugu noqonayaan wasiir ku-xigeenka kaabayaasha dhaqaalaha. Waana isla mas'uulkii uu darawalkiisu galay madaxtooyada isla markaana ka shaqaynayay sida loo khaarijin lahaa madaxweynaha. Laakiin faylka waxaa ku jiray dad badan, waxaana ku jiray xubno ka tirsan baarlamaanka iyo qandaraaslayaal ajnabi ah. Tani waxa ay ahayd shabakad loogu talagalay burburinta Burkina Faso. Isaga oo og in caddayntani ay dumin karto mustaqbalka dad badan ayuu haddana ku dhiiraday. Ibraahim Traore waxa uu ku safray tuulada Kombai oo ku taala meel ka fog caasimadda dalka Burkina Faso si uu u qorsheeyo tilaabooyinka xiga ee uu qaadayo. Mid ka mid ah saraakiishii uu aaminsanaa ayaa soo diray fariin, waxa uuna u sheegay darawalkii maqnaa in la helay, sidoo kalena laga helay god isaga oo meyd ah oo madaxa laga toogtay. Qof ayaana ku qariyay halkan ayaa la soo raaciyay. Ibraahim Traore waxa uu go'aansaday inuusan raacin shuruucda, sidoo kalena waxa uu adeegsaday farsamo sirdoon isaga oo faafinaya warar been ah oo kala duwan si loo ogaado qofka xogta bixiyay. Waxaana la ogaaday in gudaha xafiiska haweeney ka shaqaynaysay isla markaana ay ahayd habdhowraha maamulayay xafiiska madaxweynaha in ay ahayd qofka kaliya ee ka dambeeya, sidoo kalena basaasay, sidoo kalena keenay xogta fududeysay keenida agabka miinada ee gudaha madaxtooyada. Halkii uu isla markiiba xiri lahaa gabadha, waxa uu amray inay qabanqaabiso shir degdeg ah oo golaha wasiirada ah, isaga oo sheegay in uu soo bandhigi doono caddeymo muhiim ah. Habeenkii shirku ka horreeyay, markii ay shabakadu ku mashquulsanayd sidii ay u carqaladeyn lahaayeen shirka ay habeen dambe yeelanayaan golaha wasiirada, Ibraahim Traore waxa uu qaaday tilaabo kale oo lama filaan ah. Weerar isku mar ah ayaana lagu qaaday goobo dhowr ah. Wasiir ku-xigeenkii ayaa gurigiisa lagu weeraray oo lagala baxay. Haweeneydii xafiiska joogtayna waa la qabtay iyada oo loo taxaabay xabsiga. Subaxnimadii xigtay, wasiiradii ayaa yimid shirka iyaga oo yaaban. Ibraahim Traore ayaana soo istaagay fagaaraha, waxa uuna ku dhawaaqay in baaritaankii uu dhammaaday, dadkii dambiilayaasha ahaana la qabtay. Waxa uuna sameeyey wax aan hore loo arkin, waxa uuna amar ku bixiyay in dhammaan caddeymaha iyo diiwaanada maaliyadda in la horgeeyo aqalka golaha wakiilada. Dadka Burkina Faso ayaana lala wadaagay in lacag ka badan 150 milyan laga xaday 5 sano ee la soo dhaafay. 3 bilood kadibna waxaa bilowday maxkamadeyntii xubno ka tirsan xukuumadda, isla markaana lagu eedeeyay inay abaabulayeen shirqoolo ka dhan ah madaxda, sidoo kalena ay xadeen lacago kala duwan. Wasiir ku-xigeenkii waxaa lagu xukumay 20 sano oo xarig ah, waxaana la soo celiyay ku dhawaad 90 milyan oo dollar. Ibraahim Traore waxa uu lacagtaasi u isticmaalay inuu dib u bilaabo mashaariicdii la dayacay. Waxa uuna booqday tuulada Kombai si uu u furo isbitaal cusub. Oday beeraley ah oo markaasi kula kulmay isbitaalka ayaa sheegay in wiil uu awoow u yahay uu ku dhashay isbitaalka, taasi oo badbaadisay nolosha gabadhiisa iyo ilmaha uu awoowaha u ahaa. Waxaana Ibraahim Traore xaqiiqsaday in digniintii uu siiyey mid ka mid ah ilaaladiisa ay badbaadisay noloshiisa, balse tilaabooyinka uu qaaday iyo baaritaanadu ay badbaadiyeen nolosha dadka reer Burkina Faso. Fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka subscribe dheh, isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.